wote wafurahie na Kenya mzima watu wajue, mpaka rais ajue mchana ya bidii asiharibiwe jina yake, na alikuwa anafanya contribution hii ya mambo ya harusi. tufanyie hapa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asna macalin boolaale aalidaha soo mujinka ganacsada soo mujinka anahay faadima geedi corruption kuma jiraysa mana ku jiraysa waqti ay ku jiraysa malaha inta soo sana from 13ki baka 17ki umbaanta dooranaynin dad madaxan dooranaynin laakiin inta iyada martay oo ma aragtay oo sameysay development nin sameeyna karo malaha wayno adeegtay khayr Allah hasiyo sokortan kamalaha masaakiinta kor u qaatay soo waxaad garatay maaha meel kasta ay aadi iskuulka ay aadi waxay aadi prison kay aadi annaka suuqlayda aadi nin aan dooranni oo weligayna noo imaado oo masaakiin kor u qaadi maaha maamoodinka kor ay u qaatay xaqayna ay soo ridi faadima geedi qof corruption iska dhaafay agtiisana mara maaha waa qof jibli ah oo bisaari weligaad ma gelin dawladda ay kamidta ninkii hadal u doonay meesha asaga ku hera Kiswahili Salaam alaykum kwa jina mimi naitwa Hasna Maalim Bule mimi ni mfanyabiashara ya soko mjinga ya kwamba naongea Fatuma Gedi ni women rep ambayo sisi tumechagua na Mungu akitufikisha insha Allah 2022 tutachagua governor enyewe keti ya Uhuru Kenyatta enyewe ni hiyo msichana mdogo ndo ameletea ambayo hiyo serikali bidii yake ndo amejengwa ndo akakaa amekalia na tena anataka kujenga Ruto na tutajenga na yeye. Hiyo mtoto hajawahi kuona corruption hiko mingi ndani ya Wajia ambayo watu haoni mwenyewe anafanya corruption yuko lakini msichana ni msichana bidii ni msichana maskini ni msichana ambaye tumechagua mtu akitaka kuaibisha yeye hiyo mtoto hana aibu hata kidogo na Mwenyezi Mungu anajua na atawalinda wenyewe wivu inasema Kiswahili anasema mwenyewe wivu ni kidonda ukishiriki utakonda sasa msichana yuko na bidii ambayo chap kila mahali sisi hatujaona bunge hatujaona governor hatujaona county rep watu ngapi watu 6 ndio sisi tumechagua bwana yeye anasumbuka bidii yake bidii nyingine atamuongoza mwenyewe ameuza sukari ajitoe sisi hatuna haja sisi mwenyewe atoe labda yeye ndo mtu wa Somalia ndo anaendelea kasi ya corruption. Hii mtoto ni mtoto amesaliwa hapa Wajia, ni mtu wa Wajia, Kenya citizen, ni mtu mdogo ambaye amemulika toshi, ni toshi ya nchi ya Wajia. Inshallah hataona na mwenyewe amesema yeye ndo atachoka mwenyewe, atajinyonga mwenyewe. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama.
naitwa Halima Makena Thomas, mkaaji ya Wajir. Naitwa Halima Makena Thomas. Mimi ni mkaaji ya Wajir na nimeishi Wajir miaka mingi na tumechagua wengi sana, lakini hatujai kuona kama huyu. Mimi hata yule nilikuwa zamani simjui, sijai kumuona, lakini huyu Fatuma Gedi nimemuona akiwa mtoto akisoma, nilikuwa hapa na saa hii amechaguliwa, amerudi tena ametukumbuka. Zamani hakuna mtu ametuletea mavuli, saa hii tunajifunika mavuli. Yeye ametuletea free, akatuletea maskini, akawasaidia. Mimi kwanza si Msomali na mimi ndio nilipata ndio wa kwanza kwa tu ya gari. Sasa mtu ya kusema ati yeye ameongana na shilingi 10,000 hata iwezi nunua mfugo. Kwa nini anaongana na 10,000? Yeye shughuliki na sukari, yeye anashughulika na sisi wananchi ya Wajir. Ule alisema yeye ameongana, labda yeye ndiye ameongana, lakini si Fatuma, na tujasikia amefanya corruption hata kidogo. Kwa hivyo awachane na msichana yetu, arudi Wajir atufanyie kazi mahali amebakisha. Awachane naye kabisa, wasimharibu kichwa wakati amefika katikati kufanyia wananchi kazi. Na ule atasema amefanya corruption, anamtafuta na njia zingine, lakini sisi tutamshika mkono mpaka dakika ya mwisho na tutamfanya governor. Wacha saa hii wanapigana hapa kule. Number 1 tutamchagua atakuwa governor Fatuma Gedi. Anajua maskini na ana maringo, anashika kila mtu mkono. Asante sana. Feria, arinta corruption ka kili ka hadla. Corruption. Wax kala dhaxgalina. Corruption isa wax noo qabataa laga hadlaa maxaa? Ay. Soomaali bas. waxaan ka hadlayaa maanta arinta corruption-ka oo la sheegay. Anaga waxaan soo dooranay Fatuma Gedi iyo madax kale oo fara badan. Waligayna ma arkin nin madax intaan soo dooranay. Waligay meel kale ma tagin. Wajir baan guri ka soo ridi jiray. Waligayna waxaan arkay nin aan soo dooranay oo nagu soo noqdo. Hadda waxaan aragnay gabar aan soo dooranay oo shalay ballan naga qaaday, maantana ballanta noo oofisay. Fatuma Gedi waa gabar ama aragtay ma sha Allah tolka muslimka oo dhan toosheysay oo qabiil lahayn. waxaan ku ognahay inay gabar ma aragtay daacad tahay. waxaan ku ognahay inay gabar furfuran tahay. waxaan ku ognahay inay gabar ma aragtay masaakiinta oo dhan kordhaqaadi ay tahay. ma maqlaysaa? waxaan ka rimaasanahay corruption-ka lagu sheegay waa dacayad. dacayad gabadha loo keenay waay. dacayadaasna dacayadaan ogolnahay maaha. waxaan ka xigaynaa anaga ma aragtay banaanbax iyo waxaan ka xigaynaa iyo ma aragtay arintaas aan qaada karna maaha. aan qaada doonana maaha. Fatuma Gedi wayna mahadsan tahay 100 jeer. marka waxaan ogsoonahay Fatuma Gedi insha Allah kursiga Allah ka dhiga. Amiin. آمين الركتو أنا وين الله يجري آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحلا يرادا ماما قرطمة محمد سليمان وحن كتر سنها بالعانتا سوكا وجينكا وبالعانتا هو رئيس السوق دكتك. أنا ولي إنتان عن دورنا إن الدم مضحي وحنا إماضو وهلك نوبو إماضو ولي قايد ما نركي ما دام مضح بدنا عن دورنا إن ولي نوع إماضو مساكين كالمي ولي ما نركي. gabadhan waxa waay aad iyo aad u mahadsantahay maadaama waxa waay annaga boqol jeer ay noo imaatay maray amreela noo qaybisay maray waxay tiri walaalayaalow suuqa ina soo dhicina ninkii dhahay suuqa ina soo dhicina annaga qofkaas walaalkeena qofkaasaan dooranayna qofkaasaan rabna habeen iyo maalin maadaama corruption ma taqaanto gabadha corruption maxaa bare 10 kunna uma baahna ka badan ay haysata waxay 10 kun ugu baahanta male Wajir ay ku dhalatay Fatuma Gedi waa la yaqaana meeshay ku dhalatay iskuulka ay dhiganayso waa la yaqaan corruption ma taqaanto corruption waxa yaqaana dadkii hore la doortay oo habeen iyo maalin corruption ka shaqeynay oo waxa laga qabanay
marka waxaan dhiilay Faadima Gaadi Cali way maadsanta annaga ma habeen iyo maalin hortaagana wixii wax ku soo biyan habeen iyo maalin la hargamayna annaga waxaan ka hortaagana maandhamaan qaadno haday arinta la dayn way bilcaanta soo ka wajinka maadaama banaan baxan soo bilayna ma yeelayna habeen iyo maalin maadaama waxa laga xunya suuqayna soo dhicisay annaga suuqa waxa way maalinta u horeysa Nuur Cali Cabdi Oogla noo soo dhiciyo inkastoo Nuur Cali Cabdi Oogla soo dhiciyo waxba nalaga qabo way gabadha banaanka laga maro nimanka u baahan corruption ka sheega iyaga yaqaan si corruption la soo ilaa Soomaaliya إيه لا نعي ما أنت إيه بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحنا حبيب عبد الله حسين وجايرة وكل شيء حبيب هذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحنا حبيب عبد الله حسين بعد ما كان حبيبي عبد الله حسين ayaa magacayga lahaa soo wajinka ku noolahay masaakiinta qofka u soo masaakiinta ayayna sacaabisay wax kasta ayna siisay baadima geeda corruption ma taqaano tuugnimo ma taqaano waxba ma taqaano adii ajuraaba way u siman tahay wajaaro dhan way midaysay ninka alla ninka u soo kaca corruption asaga